wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa murtida halkudhegeedu aad tahay labo ma waaraan laba waxyaabood oo aan soo sheegi doono ma waaraan labadan waxyaabood waxa ay kala yihiin maal gacan haween galay iyo ilmo gacan rageed galay labadan waxyaabood ma waaraan waxaa loola jeedaa sida la rabay ma noqdaan ama sida la rabay kuma soo baxaan soomaalidu waxay hiddo u lahayd in ragga iyo dumarkaba u qaybiso howlaha qoyska oo mid walba ay gaar u leeyahay arrintaani kama foga dardaaranka wadaadka isku meheriya wiilka iyo gabadha kolkuu wadaadku isku meheriya wiilka iyo gabadha wuxuu si gooni ah kula dardaarmaa mid walba mas-uuliyadda ka saaran qoyska waanadiisa horeba waxa uu ku bilaabaa wiilka isagoo si hoos ahaan kula xanshaashaqa in guurka marka hore si dhuuban yahay marka dambena uu sal ballaarto dardaarankiisana wuxuu ku soo hooriyaa inuu xisaabtamo oo daryeelo xoolihiisa maalintaa kadib ninkaa guursada wuxuu u xusul duubaa siduu u shaqaysan lahaa ama haddii uu shaqaysto inuu dhiifoonaado kadibna wadaadku wuxuu dardaaran kula jeestaa gabadha isagoo cashir kooban ka siiyo cilmiga barbaarinta carruurta wuxuu kula tanaagoodaa siday u ababin lahayd dhalaankeeda haddii ay wiilal yihiin iyo haddii ay gabdha yihiin oo waa tan la yidhaahdo qoon hoggaan xun iyo qoys hooyo xun midna ma hana qaado haddaba murtidan odhanayso laba ma waaraan maal gacan haween galay iyo ilmo gacan rageed galay waxa ay ka hadlaysaa ififaalaha yar oo aan soo sheegnay haddii qof walbaahi uu gabo hooshiisa midda koowaad murtidu waxay leedahay maal gacan haween gale ma waaraan maalku waxaa lagu qiimeeyaa kubcintiisa dhinac kaste waxaa loo sahmiyaa meesha uu ku kobci karo waxaa laga fiirsadaa halka xargaha looga jaro oo burcad iyo dugaagba uu kaga badbaadayo hawshaasi waa hawl dhib badan sidaa darteeda ragga ayay soomaalidu ku qiimaysaa saa maxaa yeelay isaga ayaa socodka ku fiican maal gacan haween gale micnaheeda kuma koobna macnaha qura oo aan soo sheegay ee sahanka ahi balse waxay kaloo leedahay macno kale oo ay sheegaan murtiyaqaanada waxa ay leeyihiin waxaa tooboon in xoolaha reerka gacanta uu ku jiro ragga oo isagu oo reerka u maamulo baahida reerka isagaa og intuu u baahan yahay isaguu ka fikira maraxa iyo dhigaalka loo baahan yahay wakhtiga dhibaatada taasoo uu kaga duwan yahay dumarka halka dumarka in la shidan karo lama maalmood hal maalin oo qura ay ku shubaan digsiga si ay maalintaasi baraarahooda uga sheekeeyaan oo waa tan la yidhaahdo rag bi'iisuu ka sheekeeyaa dumarna baraarahooda midda labaad murtidu waxay leedahay ilmo gacan rageed galay ma waaraan waxaa cidna ka qarsoonayn in hooyadu tahay gacanta midig jeceylkeeda daryeelkeeda aan laga heli karin cid kale oo dunida ku nool waa kuwii ay ahaayeen xigmaduhu haddii aad weydo hooyada waxaad weyday qoyskaagoo dhan qofku waxaa ugu fudud inta uu waayi lahaa hooyo sabool ah inuu waayo aabba hodan ah haddaba daryeelku waxa uu ku jiraa in ilmuhu helaan hooyo ha u xumaato ama ha u samaato hooyadu waa laga maarmaan cilmi kastaa barbaarinta ka hadla iyadaa lagu sheegaa inay carruurta ku ababiso wixii u roon waxna ka ogaan karta xaaladdiisa sida haddii uu gaajaysan yahay haddii uu buko culimmadu nafsiga waxa ay qoreen ilmaha helo hooyo isna wuxuu helayaa caafimaad oogada iyo jidhka uu ka helayo naaska hooyada iyo la jidhkeeda culimmadu barbaarintana waxa ay yidhaahdaan hooyadu waa dugsiga koowaad ee carruurtu wax ku bartaan haddaba kaalinta hooyo cid beddeli karto ma jirto si kastaba ha ahaatee maal gacan haween galay iyo ilmo gacan rageed galay ma waaraan haddii ay isbeddelaan maal waxaa dhaqaalayn og ragga oo lexla jeclo badan dumarkuna waa ku cayaaraan carruurna waxaa xanaanin og haweenka ragguna waa dayacaan oo halka laga yidhaahdo ragga riyaha reerihiisa waa ku ogyaa laakiin ma liso haddaba murtidan waxay inoo sheegaysaa arrin kastaa inay ku fiican tahay qofka aqoonteeda u leh islamarkaana soo saari kara hase yeeshe haddii la waayo qofkaasi oo u beddelo qof kale oo waxba aan ka aqoonin arrintaasi waxay noqonaysaa arrin aan waxba aan ka soo bixin islamarkaana lumaan
haddaba murtideenna dowgeeda waxay maraysaa kolkii la helo rag ku wanaagsan maalka iyo dumar ku wanaagsan carruurta. dhegaystayaal, tixanaha murtida iyo mahmaahyadani maanta halkaa ha inoo joogto ta intaan ku kulmi doonno qayb kale.